intaana muuqaalku guda galin in waxaan ka codsan lahayn inaad channelka subscribe saarto waxaan doonaynaa inta aan la gaarin Ramadaanta ka hor inaan gaarno 30,000 oo subscribe marka haddii aad subscribe hore u saartay videogan like saar si uu dad kale oo badan u gaaro ay iyaga u saaraan subscribe 8 sano ayaa ka soo wareegatay guurkii Salaad iyo Maryan balse wax carruur wali isku maysan dhalin waxayna xilligaas go'aansadeen inay tagaan meesha lagu xanaaneeyo carruurta si ay u soo kaxaystaan mid kamid ah carruurtaas waxaana kaxaysay mid kamid ah shaqaalayaashii meesha waxayna u soo tustay carruurtii mid sidii u socdeen waxa ay aragtay Maryan mid kamid ah carruurtii وميل gooniya fadhida waxayna weydiisay maxaa khaldan gabadhaas maxay u ciyaar laadahay oo carruurta kale u ciyaarayaan gabadhii meesha ka shaqeynaysa ayaana ku tiri gabadhaas waxay indhaheeda ku aragtay waalidiinteeda oo dhimanayo sababtaas ayaana keentay in carruurta ka duwanaato waxayna tiri Maryan waa xanuun aad u daran waxaana laga yaabaa inaan dhigi karno oo aan gabadhaas u noqon karno waalidiin gabadhaas ayaana mudan in aan ka xisano gabadhii ayaana soo kaxaysteen ay u soo kaxaysteen gurigooda xilligaas waxay soo aadeen guri cusub ay ku lahaayeen oo ay mar dhow soo degeen gurigii ayaana imaadeen gurigaas oo ku yaalay magaalo cusub waxayna ku tiri maan duceysano maadaama aan guri cusub gabar cusub baan keensanay isagii waxa uu ku dhahay naga daa wax saas muhiim ah habeenkii ayaa la gaaray waxayna arkeen wax ay aad u la yaabeen gabadha yarta ah waxa lagu magacaabay Muna wax dhaqaaqa ma sameynayso ma hadlayso ma qoslayso kaliya foogaas ay isku ruuxaysaa Maryan ayana ninkeeda la hadashay oo ku tiri gabadhaas yarta ah muujeeda aanto dhan ilaa maysan hadleen mana qoslayso mana aqaan wax ka khaldan gabadha Salaad ayana ku yiri gabadha waxa u samaysaa waxyaabaha hadiyada ah sida shokolaatooyin cake iyo waxyaabo noocaas oo kale ah tartiib ayada u soo hagaagayso Maryan waxay isla maalinkii dambe u samaysay cake iyada khaas u ah oo ay ka samaysay chocolate gabadhii markay soo fiirsay waxay bilaabday inay dhahdo dhiig Maryan ayaa ku tiri dhiiga kala disid muxuu yahay markii ay Maryan fiirisay cake waxay aragtay waxay aad uga naxday waxayna aragtay meeshii ay shokolaatada ku shubtay oo wada dhiig ah way naxday waxayna turtay cake iyadoo aad u naxday gabadhii waxay dhool cadeysay waliba dhool cadin aad u cabsi badan waxayna aaday dhankii iyo cake waxayna bilowday markiiba inay cunto cake oo dhiigi leh Maryan ayaana ku tiri Muna joojiha cunin waxaan waa wasaq balse dhagumaysa dhigeen gabadhii yareed ee Muna ahayd waxayna sii cunaysay cake oo sidiisii dhiigi u leh iyadoo sidoo kale dhool cadeen aad u cabsi badan sameynaysa Maryan waa ay la balabootay waxayna markiiba wacday ninkeeda waxayna ku tiri waxa jira wax aad u cabsi badan gabadhii yareed waxaan maanta u sameeyay cake waxaan ku arkay dhiig mana aqaan dhiigaas meesha uu uga imaaday balse markii aan cake tuuray gabadhii intee tagtay ay maclan cake dhiigis la cunaysaa mana aqaan wax ka khaldan maad guriga imaatid Salaad ay ku yiri waxaas wax dhib lama ahan gabadha yarta ma kala taqaano cake inuu fiican yahay inuu xun yahay sidaas ayaan iskaga cunaysaa wax weyn ma ahan waxaan wax weyn ka dhigin shaqa ayaan ku jiraa soo wixii mar dambe adni istaji saacadu waxay xiligaas ahayd 9 habeenimo ama 3 saac waxayna soo kaxaysay gabadhii yariist ahayd waxayna bilowday xiligaas inay cunto kariso waxayna maqashay dabaq ka soo baxay dhanka iyo banaanka waxayna aragtay gabadhii yariist ahayd oo ku fadhida wiifowga waxayna ku tiri maxaa kugu dhacay Muna soo bax maxaa xiligan banaanka qabanaysaa waxayna u timid waxayna ku tiri maxaad gacantaada ku haysataa wuxuu yahay waxaad cunayso wuxuuna wax u eg sida shokolaatada oo kaleeto sidoo kale kore aad u moodin kaga halaysan yahay dhiig waxayna ku tiri maxaad cunaysaa ila hadal waxayna ku tiri yogurt ayaan cunayaa xaqiiqa keentay ayay ku tiri waxayna gacanta ugu fiiqtay dhinacaas markiiba waxay fiirisay dhinaca gacanta loogu fiiqay waxayna aragtay waxay aad uga naxday waxayna aragtay yaanyoor yar oo dhulka taalo oo meyd ah sidoo kalena dhiig badan uu ka da'ayo jirkeedana meel badan laga goostay Maryan way naxday waxayna soo kaxaysay gabadhii yariista ahayd oo guriga ayay u soo kaxaysay waxayna soo gelisay gurigii qolka markii ay soo furtay waxay aragtay waxay aad uga naxday waxay aragtay gabadhii yariista ahayd oo Muna oo meesha fadhido wax sawirayso waliba horteeda fadhido ugu gacantana waxa ku wadaa Muna kaleeto xaaladu way isbedeshay arintuna way ka cabsi badatay sidii hore waxayna bilowday inay gadaal u yara baxdo albaabkii ayaana si xoog ah mar isku xiray cabsi walwal waxaana horteeda soo istaagay 2 gabdhood oo Muna ah mana garanaysa midda saxda ah iyo midda kaleeto waxayna tiri Muna ku aaway midday tahay adiga aniga imo balse waxay weysay qof la hadlo waxayna maqashay ninkeedii Salaad oo banaanka ka hadlayo waa inay yara faraxday wuxuuna aamid dhahayo maxaa idinku dhacay idin aawaya albaabkii ayana amar si xoog isku furay isagoona cid furin gabadhii Maryan way soo baxday waxaan u soo aragtay ninkeedii gacanta ayana qabsatay iyadoo ooynaysa wuxuuna ku dhahay istaji maxaa dhacay aaba gabadhii yareed ee Muna ahayd ma aqaan guriga ayay ku jirtaa iyadoo 2 qof ah mana aqaan wax khaldan gudiga ayuu soo galay wuxuuna arkay gabadhii oo si tartiibiyada leh wax iskaga sawiranayso wuxuuna ku dhahay gabadha waxa ay iskaga sawiraysaa adiga maxaa ka khaldan aamin ayay ku tiri waxaan arkay waxaan aad uga cabsaday wuxuu ku yiri dhibka dhan waa Soomaali horror story-gan aad daawanaysid iska dhaaf iyo waxyaabahan khiyaaliga ah ee dadkan kugu akhrinayaan waxayna ku tiri wax walba indhahayga horteeda ayaa ku arkay beenna ma sheegayo aamin ina dareen been kuma sheegayo aniga wax walba indhahayga ay hortooda ay ka dhaceen mana ahan wax aniga iska sawiranay iyo khiyaali
ii aamin ayayna ku tiri ninkeedii. Gabadhaas yartaa khatar aad u tir badan ayay ku sugan tahay ayay Maryan tiri. oo ay dhib ma lahayn u dhahay adiga istaji oo cuntada noo soo diyaari. gabadh yarta ayaan aniga soo kaxinayaa oo aan meeshii keenayaa. adigana orjikada aad cuntada noo soo kari. Maryan waxay aaday dhankii jikada si ay cuntada soo kariso. ninkii salaad ahaan wuxuu soo qaaday gabadhii. markii uu soo xambaaray ayaa waxa uu arkay wax ay gabadha sawirtay. aad ayuu u naxay. wuxuuna arkay sawirka ay sawirtay inuu yahay sawir aan indhaba caadi ahayn. wuxuu arkay inay sawirtay ilmo yar oo gacanta iska cunay oo ku fadhiya wiifowga. oo soo qaaday waxa uu dhahay xaaskiisa iga raali noqo. wax kasta oo aad sheegaysid inay run ahayn ayaan u malaynayaa. sababtoo ah gabadhan kaliya 3 sano ayay jirtaa. bal fiir waxa ay sawirtay. waxaan wax macquul gal ma tahay oo sawir kale cunug yar oo 3 jir ah oo aan weligiis wax qorin. may waxba khaldan ayuu dhahay. gabadhan kaliya 3 sano ayay jirtaa. macquulna ma ahan waxaan iyo wax u dhow midnaba inay sawirto. marka waxa khaldan waa inaan ogaanaa. wuxuuna ku yiri gabadha shaqaalaha waa inaan isla haddaba gurigan ka tagnaa. waxayna ku tiri gabadha shaqaalaha ah waa la soo wacay mana aqaan meeli aaday. ilaa hadda maysan imaan miya ayuu ku dhahay. haa ilaa hadda maysan imaanin. waxaan u malaynayaa waxyaabo degdeg ah inay faamiligeeda ay ka dhaceen ay saas u aaday. taleefankeeda ayaana la wacay balse wax naxdinta ayaa noqotay in taleefankii uu ka dhex dhacayo guriga dhexdiisa. waxayna tiri taleefanka guriga dhexdiisa ayaa ku dhex dhacaya. waxayna raaceen codkii taleefanka ay maqlayeen. waxayna raadiyeen qolka uu ka dhacayo iyo meesha uu ka dhacayo. say u socdeen u daba raacayeen ayayna arkeen qolka wax lagu keediyo inuu ku jiro ama uu ka dhex qaylinayo. markii ay soo fureen waxay arkeen wax ay aad ula fajaceen. qaybtii koowaad ee sheekadana halkaas ayay noogu egtahay. fadlan waxaan kaa codsanayna ilaa hadda dad subscribe saar sidoo kale videoga like saar si uu dad badan u gaaro. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.